ay iskugu yimaadeen xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo waliba siyaasiyiin iyo qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ka dhacay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana looga hadlayay xeerka saxaafadda oo ay dhawaan soo gudbiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya qaar kamid ah wariyaasha oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in ay doonayaan in wax laga bedelo xeerka saxaafadda faafahinta warkaasi waxa inoo soo diray Maxamed Ibrahim Gaabo kadib kolkay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ay soo gudbisay sharciga saxaafadda Soomaaliya ayaa waxaa soo badanayay khilaafka ama cabashada u dhaxaysa saxafiyiinta ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya kaasi oo ku aadan in qodobada xeerka saxaafadda ay soo gudbisay wasaaradda warfaafinta wax laga bedelo halka qaar kamid ah saxafiyiinta ay qabaan in guud ahaan uusan habboonayn sharcigan xilligani kulan maanta ay isugu yimaadeen qaar kamid ah saxafiyiinta ka howlgala dalka Soomaaliya xildhibaano siyaasiyiin iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay ku dalbanayaan in qodobada xeerka saxaafadda wax laga bedelo qaar kamid ah saxafiyiinta kulanka ka soo qayb galay oo hadallo ka soo jeediyay goobta ayaa dalbaday in dib loo eego xeerkani ayadoona saxafiyiinta qaarkood ay eedeyn u soo jeediyeen afhayeenka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Yariiso kadib kulan shalay ay wada qaateen dawladda oo dhaan qodobkan dhib nugu ah marka inay kala hadasho xukuumadda iyadoo rabta oo diyaar ay saxaafaddu ilaa hadda waxay leedahay in ay kala hadasho wasaaradda ee quseysay ilaa hadda waxa soo galay hawshan oo ku jira dad aan shaqo ku lahayn injineeriso waa afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya waa Ridwaanna waa afhayeenka ra'iisul wasaaraha sharciganna waa sharciga saxaafadda loogu talagalay waxa loo diyaariyay saxaafadda waxa soo saartay wasaaradda warfaafinta marka hawshan waxay quseysaa wasaaradda warfaafinta iyo saxaafadda ma dheen mucaaradana xeerko dhanna ma rabna ma dheen ayaga ilaa ay hadda kulan walba dhowr kulan oo dhac waxay sheegeen inay diyaar u yihiin balse qodobo kamid ah qodobada meesha ku jira inay kala hadlaan wasaaradda warfaafinta oo quseyso laakiin ma dhicin wasaaradda ilaa hadda way isdhatire oo wasiirki dad kala ku naban oo hoosta uga jiro oo jidka uu ku socday ka weecinay maana kulankii ugu horeeyay uu qabtay saxaafadda waxa la isla gartay qodobo kamid ah in laga soo saaro oo maamulada idaacadaha ay kulli waxa ay tabanaysa waxdiidmo ma ahan oo sharciga iyo dawladnimadii inaysan diidaneen meeshan waa laga sheegay shalayna madaxweynaha hortiisa waa laga sheegay laakiin waxay tahay dawladda xeerkan ay la ordayso waxaad moodaa isbiid zaa'ida macnaha degdeg ayaa lagu wadaa wax yar ha noo saldhigto hana qanciso su'aalaan qabnaa waxbaan tabanaynaa waa un intaas waxba idinkama diidanin alxigay kaas wuxuu ahaa shalay markii madaxweynuhu uu saxaafadda u yeeray oo asna sidaas oo si kale sidaas leeg asna oo sidii ra'iisul wasaaraha goboltaas oo kale oo u fidiyay si bal asaga iyo saxaafaddu si toos ah isu wareystaan oo waji face to face isu hor fadhiistaan saxafi walbana maaragtay fikirkiisu soo jeediyo madaxweynuhu markii uu soo gaaray goobtii saxaafadda ay fadhiday waa uu salaamay si farxad iyo reen leh wuxuuna ku dhawaaqay laba kelmadood oo aad u macaan wuxuuna yiri saxaafadda iyo anigu maantay meediyana iskama dhageysanayno afkayga iyo afkoodana waa isu furan yahay waana is hor fadhinaa saxafi walbana maaragtay codkiisu maanta xor buu u yahay sida u dhiiban lahaa iyo fikirkiisa halkaas markuu arrinku taagan yahay ayaa mikrofoonkii lagu amray injineer Yariiso oo ah afhayeenka xafiiska madaxweynaha inuu maaragtay dhex mariyo oo saxafi walba oo hortiisa dhigo si saxafigii fikirkiisa qababa maaragtay halkaas uu soo gudbiyay laakiin taasi ma ay dhicin mikrofoonkii Yariiso uu la booday rag saaxiibadiisa oo si gaaraba maaragtay asaga ay xulufo isla yihiin dhinaca saxaafadda markii la fiiriyo oo hal garab ahaa oo meesha fadhiyay ayuu si dhabarka taabashaan walba mikrofoonka booskiisa ugu geeyay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow isna madasha hadal ka jeediyay waxa uu tilmaamay in saxaafadda Soomaaliya ay xor tahay isagoona ugu baaqay saxafiyiinta Soomaaliyeed inay mideysnaadaan had iyo jeer saxaafaddu waa saxaafad xor ah cid caburin karta malaha waxyaabaha lagu heshiiyay ee qaranka Soomaaliyeed lagu dhis ayayna ka mid tahay laakiin muhiim waxa ah qof kasta oo muwaadin ah Soomaaliyeed inuu aqriyo barto dastuurka waxba ma taro buugaagta dib ha loogu noqdo sharciyada dib ha loogu noqdo ha la aqriyo
wax lagu doodi karo anagu sharcigan welina ma soo gaarin qodobada aad ka doodaysiin ee lidig idinku ah ee aad ka cabanaysaan iyagoo qoraal na soo gudbiye sidoo Cabdibarre sheegay guddi waxaa jira guddiga saxaafadda la yiraahdo xaqiiqatan nin oday oo aad aqyaar u ah ana intaan ogahay ayaa gudoomiye ka u keena intaan qodoban ka cabanaynaa dhaha sharciga idin diidayo oo idinka reebayo ku soo lifaaqa dastuurka intaad gashiin qodobka sidaan uu leeyahay qodobkaana anagu sidaan uu leeyahay marka tan waa nagu la xad gudbi soo sheega u soo gudbiya martiqaada u sameeya u yeerta la kulma laakiin haddii sida hadda aan arko aad ku sii socotiin oo ah in idinkoo aanan marka ugu horeysa balaanin lahayn inta la yiraahdo saxaafadda madaxweynaha oo martiqaada waxa looga yeeray in arrimaha saxaafadda laga xiray laga hadlayaa oo nin walba kaamardiisi iyo mikrofoonkiisa inta uu qaato meesha uu tago hore la idin sii maamushay waxa way qalad waay meesha holuc ka dhacay tagaya marka waxa la idinku sameeyay baarlamaanka Soomaaliya raali kama ahan waxayna uga hadlin hadda uga hadli waayeen lama horkeedin wili lama horkeedin markii la horkeena baad arki doontaan jawaabta baarlamaanka ka bixi arki doontaan markaad horta indhiina asaari doontaan baarlamaanka waa baarlamaankii federaalka Soomaaliya shacabkii Soomaaliya matalaya qabiil ma matalayo raas kaamboon ila raas aseer shacabka Soomaaliyeed oo joogo wakiilka iyo qof kasto wakiil oo Soomaaliya dib gaaro baarlamaanku waa ka danqanaya kulanka maanta iyo sheen qaar kamid ah saxafiyiinta ayaa yimid kadib markii shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu kulan la qaatay qaar kamid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed kaasi oo hadiiba ay aad ugu soo horjeesteen qaar kamid ah saxafiyiinta ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya Maxamed Ibrahim Gaabo Royal TV Muqdisho.